sheekadii ugu naxdinta badneed waxay hoos gashay sariirta hoosteeda intayna odaygeedii ka soo noqon shaqadii, waxayna u qortay warqad ay ugu sheegayso inay ka tagtay guriga oo aanay doonin inay dib ugu soo noqoto guriga. Odaygii ayaa soo galay gurigu, waxa uu arkay gurigoo madhan ama bannaan iyo warqad meesha taala. Waa uu kala furay, waxaynu akhriyay inay ku qoran tahay waan tegay. Inta uu qalinka soo saaray jeebadiisa ayuu wax ku qoray warqaddii. Dharkii shaqada inta uu iska beddelay ayuu dhar kale xidhay. Qofna waa uu garaacay taleefanka, wuuna la hadlay, waxaanu yidhi, xabiibtii waan soo baxayaa caawa. Tiina way iska carartay. Fursad bay inoo noqonaysaa, hadday doonto yaana soo noqon. Waa uu iska baxay. Gabadhii iyadoo xanaaqsan ayay ka soo baxday sariirta hoosteeda. Waxay diyaarsatay dharkeedii, shandadiina ayayna ku xidhatay ama boorsadeeda ayay ku shubatay oo xiratay. Markaas sii baxaysay ayay akhrisay warqaddii wuxuu ku qornayd, xabiibtii maalinta dambe lugahaaga qari markaad dhuumanayso. Fadlan haddaad dhegaysatay si aan u noqon waqti lumis ku sali nabigaaga. Adigoo qoslaysa